walaalkay marka waxay noo maraysay inagoo mataqaana saacadda isku xirayna inta kale sharaxadeeda waan soo aragnay insha Allah marka halkan waxaan ka samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala si aan u ogaano bahashii u shaqayso ayaa waxaan samayn doonaa insha Allah tacaala qaybtan dambe waa qaybtan naqaano mataqaana masuulta bakterigana waxa ku xirmay mataqaana kaafirkan baa ku xirmaya ka xiran marka xagga filaarta u socoto ayaa sidaa u soo yana mataqaana waa obintii sida ayaad u soo mataqaana yarka mataqaana masuulta burjinaysa kadib marka furka waxa ku soo baxay gudkaas fiiladaas ku jirta wala marka bateriyaasha mataqaana masuulta sidaan aad u gelina afka iyo afka weyn wad aragtaa afka yar iyo afka weyn baad isku aadin doontaa sidaas baad u xiri doontaa insha Allah tacaala walaal baterigana uu jiraa bateriga waxa way mataqaana lama jaajar gareeyo 9V baa la yiraahdaa isagu waxa waa disposable jaajar ma ahan doo ka dhammaad iska tuuri doontaa kanuna waa jaajar sidaad arkaysid waa ka type C ayuu kugu shaqeynayaa leerkaasina wuxuu ku sheegi doonaa inay markaad dabka connected ku xirtid ayuu calaamad casaan ama guduud soo shidi doonaa markuu buuxsamana cagaar buu soo shidi doonaa yeelkadeeda marka walaal hadda mataqaana masuulta saacadii baan xiraynaa sidaasaan u xiray waxaan sameynaa marka iyadu sida ahdaarta gudkaana ku xiraynaysaa laakiin hadda si mataqaana crash ama degdegaan rabaa inaan u sameeyo waxaan sameyn doonaa marka shiditaankii baan rabaa inaan sameeyo insha Allah walaal marka halka eeg waxaan marka badhankan halkaana waa laga damiyaa halkaana waa laga shidaa hadda wayba noo deysanta marka sidaan baan u soo shidayaa ilaa calaamadan casaanka ah ee noo soo baxdo ah lambadan markay kuu soo shidanto bateriga inuu diyaar yahay kuu sheegaysa ayaa ku qoran marka sidaan ayaan ayr sameynayaa waa ka wad arkaysaa walaal macnaha waxaan yiri kan mataqaana masuud hadda sidaan onta xagga meeshan oo kaleeto sidaan ayaan u soo wareejin doonaa waayo cajaladdan aad aragtid walaal waa tii raadiyaasha ama mataqaana masuudta cajaladda wareegsato tooshashka qaarkoodna isticmaalaan raadiyaasha horete la isticmaali jiray Philips oo kale tan isticmaalaan dadkii garanaya marka walaal hadda insha Allah tacaala waxaan yiri mashiinta waxa noo shidan mataqaana way noo shidan tahay waka hadda marka hore kana noo shidna oo bateriga ahaa baterigu inuu shaqeynayo tusinaysa bateriga igu xiriirsan walaal waka kii kalena uu diyaarsan yahay walaalkayo marka si aan u ogaado ama sharaxaadii mataqaana masuultahay ku saabsaneed shaxdan qaabka loo howlgeliyo si aan u ogaano ayaa walaal waxaan rabay mataqaana masuulta inaan ku tusiyo bal horta marka koobaad maxaa kow la geenayaa maxaa saddex la geenayaa maxaa toddoba la geenayaa maxaa shan la geenayaa shaxdan baan rabnay inaan mataqaana maadaama aan soo akhrisano ama horena u soo sharaxnay inaan iminka u dhaqaaqno iyadoo toos ah insha Allah tacaala haddaba walaal marka waxaynu niri lambarada meeshan waa shaashadii waa wejiga koobaad oo inoogu qoran yihiin mataqaana labada lambadood oo midna bateriga ay tahay midna saacadda ay tahay haddaba saacaddu walaal waa diyaar weeye si markaan hore ugu sii socono insha Allah tacaala waxaan samayn doonaa xariijimahan ayaan arki doonaa qaabka u shaqeeyaan saddex qaybood ay ka kooban yihiin qaybta koobaad cagaar bay shidi doontaa ama akhlar ama doogdoog waxa loo yaqaano qoloba midabkeeda kulaba sida u taqaanaa qaybta kale inoogu xigtana waxay shidi doontaa mataqaana masuulta waxa loo yaqaano yellow ama mataqaana masuulta huruudi waxa u yaqaanaa dadka qaarkood ama jaalle ayay shidi doontaa afar xariiqmood waa afarta koobaad waa cagaar afarta ku xigta waa jaalle afarta ugu dambeysana walaal waxay noqon doontaa casaan ama guduud ay noqon doontaa haddaba walaal markaa si marka aan u ogaano oo de lambaradii aan ka sheekeynaynay ee inagu waafaqaan ayaan halkan u soo wareejinaynaa ilaa waxaynu niri sidaas oo kale badhankan halkan inoo saaran ayaa afar shaqo qabta walaal marka koobaad waa laga shidaa xagga onta ayaad u soo wareejinaysaa cajaladda sidaan ayaan u soo wareejin doonaa dhash ayay dhihi doontaa saacadaha qaarkood ku wada dee saxdahay ayaga dhawaaqayo dhash ama rash bay oran doontaayo waad maqli doontaa haddii ilaha yirahdo insha Allah tacaala marka xagga waa shiditaankii xaggana markaad u wareejisno walaal waa dimitaankii oo iyana waa inay dhawaado ama rash tira ama dhash ay yara tiraahdo adoo mataqaana xoogna aan isticmaalayn si yara aad u jilacsan aan isticmaalayn oo mataqaana masuulta sidan baan u wareejin doontaa marka way dhawaaqi doontaa markaad diminaysidna way dhawaaqaysaa markaa shidaysidna way dhawaaqaysaa haddaba marka walaal meeshaan foliumka inoogu qoran tahay ama dheeraynta ama gaabinta falaartaas hoose u socotahay gaabin bay ka dhigantaa falaarta hoose kor u socotahayna ama xagga u jeedana wala dheerayntii ka dhiganta oo onta xaggeeda u jeeda midna ofta u jeedaa midna onta midda u jeeda waa dheerayn ofta midda u jeedana waa gaabin haddaba walaal marka waxaan sameynaynaa insha Allah tacaala bahashii baan wareejin doonaa xaggii baan u wareejin doonaa insha Allah tacaala waa ila soco walaal waad aragtaa hadda waxaan haysanaa afartii goobaad ee mataqaana masuulta ahayd cagaarka ayaan haynaa bal hadda haye anaa sii dheerayn doona afartii waxaan ku dari doonaa marka insha Allah tacaala huruudiga ahayd ama mataqaana yellowga ahayd okay
afarta dambe casaanka ayaan ku dari doonaa cod bay samayn doontaa waa garta intaas marka waan aragnaa walaal maxay ka dhiganta marka walaal tusaale kale in adeer walaalkaygu rag iyo dumar waxa doonta ma noqon Soomaaliyadu meeshan marka macno badan baa ku jira okay waan fahmay hadda dheerayntii iyo gaabintii hadda iminka sida waa u dheereeyay sidana waa u gaabiyay walaal sida caadiga ah marka intaanan ka talaabin ayaa waxaan sii raacin doonaa tusaale kale hadda koow bay ii saaranta walaal iminka koow ay ii saaranta xariijinta koobaad ka tirinayay kama tirinayo mataqaana masuuta lambarkan mataqaana masuuta macnaheedu inaan kan ku tirinayo ma xariijinta koobaad hadda xariijinta koobaad ii saaran okay xariijinta koobaad marka aan soo saare waatan goorman geesanaya waxaan geesanayaa markii dhagaxu yahay ever dhibic 6 iyo wixii ka sii sareeya temperature-kuna uu yahay 10 centigrade iyo wixii ka hooseeya dhagaxuna oo intaas yaa walaal adigu markaa dhagaxa aa haysatid qiyaastiisa ama qiyaasamay ama cabirkii isticmaale waa ku muhiim inaad maskaxda ku haysato walaal haddaba marka kow goorman u baahnahay waxaan u baahnaa markaan kugu celiyo 10 centigrade mataqaana xararada heerkulka cimiladeena guud marka la cabiro ilaa waa aragteen saacadaha masaajidda ku yaala ayaa sheegay walaalayaal macnaha laga yaabaa in si ku ogaan karaa su'aalaha inay kugu soo baxdo marka waxaad ku ogaan kartaa walaal si guud cimilada Soomaaliya isku celiis waa 33 35 adiga average-keedu waa 30 ayay u dhaxaysaa insha Allah taala marka 30 ka tana naga anfacaysa haddaba marka walaal koow marka waxaan geysanayaa marka cimiladu noocaan tahay okay laba waxaan geysanayaa marka cimiladu tahay maxay cimiladu markay ay tahay 10 ilaa 30 inta u dhaxaysa markay tahay ayaa laba geysanayaa haddii 30 ay tahay Soomaaliya oo kale guud ahaan ilaa Soomaaliya inagu joogna iyo Afrika wixii joogo waa isku mid ah marka Afrikada qaarkood qabab uu jirta laakiin midna waxaan ka hadlaynaa wadankeena ayaa tusaale soo qaatay inaga marka waxaan noqon qosayso walaalow 30 kan markay tahay iyo wixii ka sii sareeya saddex baan geynayaa saddexdii aan geynayna walaal marka waa ka